udgooni nabadii macaani neeca udgooni iyo barwaaqada nimca lagu qabooba inta naasir maano laga jabo nafaqada naxariista eebaay niyadana u roone naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysi nabadii macaani neeca udgooni nabadii macaani neeca udgooni galabta waxaan doonayaa halkan inaan ku daahfurno oo aan idinkaga bilaabo barnaamijka halkan aan u fadhino waa seminaar ama madal la yiraahdo madasha talawadaag oo maaragtay aan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed ee reer Sweden ama dhammaan waqooyiga Yurub dadka halkan fadhiya Sweden kaliya maaha galabta waxaan aad u salaamayaa saaxiibadayda qaaliga ah walaalahayga ka imaaday reer Finland walaalaha kale oo ka imaaday maxaa la yiraahdaa Stockholm banaankeeda asxaabta kale oo ayaguna meesha nagala soo qayb galay dhammaan waan u mahad celinayaa waxaan daafuraynaa madasheena wada hadalka oo la yiraahdo talawadaag halkan waxay noo noqonaysaa gole aynu isku wareysano waxay noo noqonaysaa meel aynu debate ama doodo ku sameeyno waxay noo noqonaysaa gole ama madal aynu isku cafino maadaama Soomaali aynu nahay oo dhibaatooyin badan iyo wax kala gaargaareen inaynu is cafino markaan is cafino oo wada hadalno inaynu is aqbalno markaas kadibna waxaan gaaraynaa insha Allah taala inaynu istiiraanyo bixino tiiraanyo bixinta eray kale uma hayo laakiin de waa in wixii dhacay oo laga wada hadlo markaas kadibna aanu ku dadaalno oo ka shaqeyno inaynu yareyno waxyaabaha maxaa la yiraahdaa fikradaha xun ee anaga dhexdeena yaala oo aynu anagu iska qabno Soomaali ahaan inaanu aad iyo aad u yareyno kulli ma baabi'in karno laakiin inaynu yareyno marka madashan talawadaag waxay noo noqonaysaa maaragtay madashaas aan idin sheegay talawadaag ayaa la yiraahdaa magaceeda waxaan rabaa marka barnaamijkeena sidii uu ku bilowday in yar inaan idin dul maro iga raali ahada adinkoo ii dul qaadanaya wax 5 daqiiqo aan ka badnayn ma ku soo koobaya inagoo ah akhyaar Soomaaliyeed odayaal haddaan idhaahdana dhibaato ma leh ayaanu waxaan jirtay inaan muddo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano ku dhow aynu wadnay wada hadalkaas markii hore waxaynu ku bilownay qof iyo qof 2 iyo 2 3 iyo 3 4 iyo 4 sidaasaan u wadnay annagoo mar walba lambarka soo badinayna muddo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano ku dhow wada hadalkii inta markuu soo socday kor ayaan u soo qaadnay galabta halkan aan keenay waxaanu ka dhignay afkaar Soomaaliyeed sababtoo ah galka marka horeysaba inaad isweydiinaysaan dhaqanka maxaa nabad galiyay dadka inuu daweeyay ahayd caafimaad ka hadlo maxaa arinta muxuu ahaay nabadda muxuu ahaay inuu ka hadlo maanta ama muxuu ahaay daneeyo maxaa keenay tan horeysa waxa weeyaan nabaddu ama la'aanteedu waa qodobka u weyn oo maanta waddankeena haysta haddii issue laga hadlo waxa weeyaan muxuu ahaay nabad iyo colaad peace and conflict meeshii colaad taalana muxuu ahaay waxa ka maqan nabaddii waxaan doonaa kulligeena waxa weeyaan waa nabaddii marka deegaan kasta oo Soomaali ah magaalo kasta oo Soomaali ah muxuu ahaay waxaa hoos taala muxuu ahaay dhibaatooyin badan oo nabadda col ah waxay yiraahdaan muxuu ahaay dadkan ajnabigii waxay isticmaalaan muxuu ahaay wadamo ah muxuu ahaay in conflict countries in conflict iyo wadamo ah muxuu ahaay
countries vulnerable to conflict wadama muxuu ahay aad ugu nugul muxuu ahay dhibaatooyinka nabad la'aanta waddankeenu waxa weeyaan waddan muxuu ahay ka soo kabanaya nabad la'aan anigu waxaan ka imi dalka 2 bilood in ka yar ka hor waxaan soo maray Hargeysa Garowe Muqdisho Baydhabo baan muxuu ahay safarkii u dambeeyay ku tegey dadaal weyn iyo ididiilo iyo muxuu ahay hiyakac ayaa ka socda waddanku waa soo wanaagsanaya laakiin iskama indhatiri karno in loo baahan yahay in nabadda la xasiliyo in nabaddu ay noqoto muxuu ahay dareenka u weyn oo qofka muxuu ahay bulshadii ku taagan yahay dalkeenna dhibaatooyinka soo maray waxaa ka mid ah dhibaatooyin dabiici ah oo hadda ku haysta imikadan haysta oo muxuu ahay abaaro waxaa soo maray dhibaatooyin dagaal sokeeye waxaa soo maray dhibaatooyin nabad la'aan deegaamada qaarkood deegaan kasta ee dalkeenna nabaddu muxuu ahay waa in bay ka tahay lama wax muxuu ahay adduunka absolute ah ma jiraan oo la oran karo muxuu ahay halkaas waa nabad 100% haddii la caawo Stockholm ma nabad ba waa nabad muxuu ahay markaad oranaysid waxaad ku oranaysaa waa qiyaas waxaad qiyaasaysaa muxuu ahay maxaad u qiyaasaysaa weey su'aashu ma shalay baad u qiyaasaysaa say ahayd bil ka hor waxaad u qiyaasaysaa magaalo kale oo ku taala muxuu ahay Yurub ku taala u qiyaasaysaa mise waxaad u qiyaasaysaa adduunka muxuu ahay kale oo muxuu ahay aynu ka mid nahay haddii loo qiyaaso adduunka kale ka mid nahay waa nabad muxuu ahay aad iyo aad u weyn haddii aad qiyaastaa bedeshidna waxay muxuu ahay dareenkaagii wuxuu noqonayaa dareen ka duwan haddii la eego marka nabad la'aantii aan soo marnay maxay dhalisay laanna muxuu ahay nabaddu waa baahi maxaa hoos yaalla weeyaan maxay nabad la'aantii dhalisay baa la isweydiinaya nabad la'aantu waxay dhalisay in muxuu ahay Soomaali islayso meelaha qaarkood ama badanaaba waxay dhalisay muxuu ahay in dhibaatooyinka dabiicadu ay muxuu ahay nagu xumaadaan oo abaarihii ay dhib noqoto in loo gurmado wax laga qabto waxay dhalisay nafaqa xumo ku dhacda muxuu ahay dadkii waxay keentay muxuu ahay qax gudaha ah maaha qax gudaha laga tegayo dibadda la aadayo qax gudaha ah oo laga tegayo deegaamo badan laga guurayo oo loo guurayo qof kastoo isle waxbaad haystaa ama muxuu ahay isu malaynaya inuu muxuu ahay inuu nabadgelyo ka fiican raadsado muxuu ahay inuu muxuu ahay ka guuro meeshii uu joogay waxaa ka mid ah muxuu ahay marka kulli waxay keenaysaa muxuu ahay arrimo caafimaad xumo ay keenaysaa caafimaad dar nolol la'aan bay keenaysaa inta qof ku dhimatay dagaal waddankeenna iyo inta ku dhimatay caafimaad xumo ku dhimatay iyo nafaqa xumo ku dhimatay wax muxuu ahay labaas muxuu ahay la isu qiyaasi karo la isu geyn karo ma aha labadii muxuu ahay kun iyo muxuu ahay 1992 iyo muxuu ahay 11kii intii ku dhimatay muxuu ahay abaarihii dhacay iyo gurmad la'aantii ka dambeysay waxay ahaayeen 9 milyan qof inta ku dhimatay dhexdooda iyo kadibna iyaguna intaa in ku dhoway noqonayaan intaasu dagaal dad isxabadeynayaan nagama dhiman umaleyn baa naga dhinteen marka muxuu ahay waxaa nabad la'aantu iyo colaaddu keenaysaa in caafimaadkii ummaddu uu galay qiil galay in dadkii maanta nolosha muxuu ahay caafimaad iyo deegaan ay ku nool yihiin ay noqotay mid muxuu ahay halisa haddii marka anigu aan ahay muxuu ahay aqoonyahan caafimaad ahay nabaddu muxuu ahay ma noqonaysaa waxaan danaynayo waxay noqonaysaa waxa u horeeya oo danaynayo waxaan eegay dhowr sano ka hor dhakhaatiirta ka shaqeysa Soomaaliya ee dagaalkii ka hor iyo muxuu ahay 3 sano ka hor xagay kala joogaan dhakhaatiirta 90% ku dhawaad oo ka yimi gobolladu waxay xamal bay yimaadeen gobollada markaad ku noqotid tirada doonaysay iyo dadkii ka shaqeyn lahaa kulli badi waa laga soo guuray haddii aad si aad degmooyinka yaran muxuu ahay ilaa imikada meel kasta Soomaaliya
wax yar oo caafimaadka ka shaqeeya qof kastoo odhanaya muxuu ahay inankayga iskuul fiican baan geen doonaa ama meel muxuu nabadan degaya wuxuu imanayaa magaalada weyn ee muxuu ahay waddankaasa ama deegaankaasa ee muxuu ahay ku hakan maayo muxuu ahay deegaamada yararka day awalto muxuu ahay waa la khasbi waxa ka soo shaqeey degmo hebel lagu bedelay waxaa lagu bedelay degmo hebel imka yaa bedela macid baa bedelaysa yani meel u bedelaysa cidna u bedeli mayso marka waxaa muxuu ahay taas maxay keentay marka waxay keentay in dadkii aqoonta lahaa ka soo qaxaan magaalooyinkii xooggoodii oo yimaadaan magaalooyinkii waaweynaa yimaadaan ama ha noqdeen shaqa doon ha noqdeen ama nabadoon ha noqdeen ama ha noqdeen muxuu ahay qof hadba wuxuu doonayo waxay marka waxay taasi keentay in aqoontiina xumaato nabad la'aantii maxay dhalisay aqoon xumay dhalisay had masalan imikada school enrollment iskuulka dadka aada waddankeenna oo gaadhay iskuul gaadhay waxaa iskuul u kal lahaa 45% meelaha waa tira koobka ugu macquulsan 60 kale ama ku dhow muxuu ahay iskuul uma kal lahaan marka waad garan kartaa marka waddan nabadi ayn oolin in muxuu ahay dhibaatooyinka noocaas kalihii ay ku iman karaan waxaan tegey Kenya waxaa lagu yidhi haddii qofka iskuulka inanka la geyn waayo iskuulka ama gabadha la geyn waayo aabbihii waa la xidhayaa waa khasab waa la xidhayaa Ethiopia nagu dhigan muxuu ahay iskuul tegiddu waa khasab lama xidho laakiin waa khasab aad ma dabagalan laakiin waa khasab marka muxuu ahay tacliinta daliskeenu saasay u tahay khasab oo inan kasta iyo gabadh kastaba uu tegayo iskuul innakana waxaan niri muxuu ahay boqolkii muxuu ahay 45 in ku dhow baa tagta maxaa keenay idana nabad la'aanta marka nabad la'aanta ha ka eegina muxuu ahay yaa xukunka haysta yaa xukunka waayey oo inta kale waxaa kale top down dusha inaad ka muxuu ahay laga eego nabad la'aanta ma aha aan eegno bottom down xagga hoose aan ka eegno waxaa taala aqoon daro caafimaad la'aan aad iyo aad u weyn baa haysta bulshada gaar ahaan hadba inta deegaanku ka fog yahay hadba inta deegaanku muxuu ahay durugsan yahay waxayna haysta muxuu ahay nafaqa la'aan carruurteennii haddii marka in yaroo abaari timaado waxay xaaqaysaa dad badan haddii muxuu ahay in yaroo muxuu ahay roobku soo habsaamo waxay keenaysaa dhibaatooyin waaweyn marka nabaddu muxuu ahay waa waxa aynu ku noolahay kulligeen nabadda yaa haya waxa haya qof kasta oo Soomaaliyeed degan dalka ayaa wax ka haya waxaanu haysanaa in muxuu ahay odayaashu ay iyagu mas'uul ka yihiin nabadda waxaanu haysanaa in nabadda ay mas'uul ka yihiin siyaasiyiinta iyo baarlamaanku mas'uul ka yahay waxaanu haysanaa in shicibku aan shaqo ku lahayn in deegaamada hoose ay shaqo ku lahayn in hooyooyinku iyo muxuu ahay haweenku ay shaqo ku lahayn nabaddu waxay ka unkantaa salka haddii salka aan laga unkin nabadda muxuu ahay nabad waarta oo xaqiiqa ma noqon karto waxayna muxuu ahay keentaa muxuu ahay nolosha ayay keentaa yani qofka muxuu ahay bulshada nolosheeda ayay muxuu ahay kobcisaa oo hagaajisaa innakoo qurba jooga oo muxuu ahay 8,000 kilomitir u jirna dalkeennii doodani maxay ka muxuu ahay maxay ka fulinaysaa maxay muxuu ahay ka qaban kartaa waxaa la eegay qurba joogta adduunku waxa ay dalkooda muxuu ahay dalalkooda ka qabtaan waxaa la ogaaday in qurba joogta Soomaaliya ay kaalin weyn ku leeyihiin waddankooda kaalintaasi inta badan waa mid horumarinta waddanka ah oo mashaariic la geeyo iyo hawl la geeyo iyo aqoon la geeyo iyo jaamacado laga shaqeeyo bay ka mid tahay qaarna waa muxuu ahay waa political representation in qofkaasu noqdo qof matalaya barnaamij siyaasadeed ee dalka ka jira madaxdeena muxuu ahay in badan baa qurba jooga wasiirada in badan baa qurba jooga baarlamaanka in badan baa qurba jooga yani muxuu ahay kaalin weyn bay ku leeyihiin qurba joogtu waddanka gudihiisa marka waxaa la ogaaday haddii qurba joogtu ay nabadda ka qayb gasho hadday nabadda ka dhan tahay oo muxuu ahay qayb ka tahay waxay keenaysaa awood dheeri ah nabaddu marka muxuu ahay markii la eego waa maxay waxa weeyaan waxay cagsigeedu waa conflict
واسقبض هدي أينو اسقبض كا أينو دوينو وحنو معاي كل عينا دجان كي نبض هدي اسقبض كي يسكرمات كي عند دول لهلين نبضي مالنا قادمين نبضنا ومعاي سادين شيء ونرش بولشدة نفقة عنتها معاي شغل هاي أنت معاي يعني حصصارك عافماتك تعلينتا أنت سو إذا الوحي مكان أوتهاي وأنا بض دولة معاي ودن كينا كديسان دولة كديسان ودن كينا هدي أي دنيا إني ودن كحقبتان وحي وباهين دخل جودها وين ماذا دخل دبده كي ماذا كليه مال وين كو قاعد مين كاسب ما يمنكره هدان دلك لهين وحصو صار لهين نبض لهين نبض عشور لقول على لهين هاي وحباب هاي ما فنكره بس waxaan doonayaa inaan maxay hoosta ka xariiqo laba arrimood ko in nabaddu ay tahay asaaska nolosha bulshada in nabadda laga unko salka waloo baahan yahay siyaasiyiinta waloo baahan yahay laakiin haddayaan maxay haantu ka tolayn maxay gunta ka tolayn maxay dusha haruubka dusha saarani meelne ina geyn maayo waxaan marka maxay rabaa halkan aan maxay kasii daayo abiil aan maxay abiilkaasni aan maxay runtii anigoo ammaanaya dhalinyadii barnaamijka soo samaysay hawshan soo qabatay dareenkaasi maxay galay maxay gaalkacayo waa example laakiin gaalkacayo keligeed maaha waa ogtiin kulligeen gobol kasta ee waddankeena in gubta hoostaal gobol kasta in gubta ayaa hoostaal haddii lagu yidhaha gobol hebel waa nabad maxay waa qiyaas haddii loo eego weeyaan waa haddii loo eego laakiin markii loo dhab ahaan loo eego isaga gudihiisa waxa hoostaala in kastaba maxay dhib baa hoos yaalla haddaynaan marka maxay arrintaa aqoon-yahankii Soomaaliyeed ka mid nahay qurba joogta baynu nahay haddaynaan maxay ka wada shaqayn oo maxay aynaan isgarabsan oo inaan maxay waddankeena gudihiisa wax ka qaban maxay u malayn maayo in kaalintii nala ka rabay aan ka soo baxno waxaan hubaa aqoon-yahan badan oo maxay xilkasa oo khibrad leh oo maxay xag siyaasadeed iyo xag dhaqanba maxay aad u durugsan oo maxay wanaagsan aqoon weyna leh halkan inay golahan fadhiyaan waxaan hubaa maxay dareenkan Soomaaliyeed ee dhex yani maxay ah qabaliga ah dareenkan qabaliga ah oo maxay qofna aanu ku fayoobeyn in maxay aynu xal u helo halkaasoo maxay ah in maxay nabad laga doorto haddii hadda maxay laba heer ay isqabtaan oo la kala qabto markii qoloba u noqoto meesheeda kuwa gudahooda kala qabanaya markii iyaga la kala qabtaa maxay oo gooni loo saaro baa isagii qoladii saddexaad la kala qabanaya marka ummad maxay la kala hayo oo meel ay ku lagu istaajiyo kala har maxay iskoolimaadkaasi aanu jirin marka maxay waxaan rajaynayaa abiilka ah inaynu maxay isgarabsano oo aynu yeelno cadow kaliya cadowgaas waxa weeye waa conflict oo yeelno maxay bartilmaameed ama yool kaliya oo ah nabad inaynu ka abuurno waddankeena waxaan maxay waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان وقمهد علنا يا وراليه كلان كان قبطي نوعد زميد أمانتين إن يولي بقلبي قوضا يكون قرنتها نبض إن دلك الصومالي الله هلو إن نبضنا سيدات أكتين وحيكا بالله بتا قفك يكا بالله بتا قلبي جيسا قفك انت هذا ان لا دغاله من قلبي قاد كلا دغالنتا جعيلك ان عيبك وقلبي وكبلا ودا marka waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa in qalbigeena uu jacayl dhaxdeena iskriyo waxaan runtii muhiim ah aniga oo mataqaana ka faa'iideysanaya 15 daqiiqo la siiyay in aan dib marka hore u fiirino markaan ka hadlayno nabadda dalka Soomaaliya aan ka hadlayno inaan fiirino
dalka Soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo taariikhda inta hadda aniga aan aad ku akhriyay 1800 laga joogo 200 ee sano ugu dambeeyay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dhulka geeska Afrika ma soo marin 20 sano oo xiriir ah oo nabad ah inta kulli aqoontayda inta aan arkay ma jirin marka sababta marka waxay tahay maxaa dhaliyay nabad la'aantaas intaas oo sano oo 200 sano ugu dambeeyay isla 20 sanadood xiriir ah aan la helin waxaa jiray laba nooc oo dagaal ah dagaal waxaa jiray Soomaalida dhexdeeda ah oo ay inta badan beelo ama degmo ay isku dagaasho oo deegaanka ay isku haysato taasna waxaa inta badan dhaliyay maadaama qaabkeena dhaqan dhaqaale uu yahay xoolo dhaqato iyo beeraley waxaa mataqaanaa dadku ay baahi badan u qabaan kheyraadka dabiiciga ah sida daaqa iyo biyaha oo kale marka dadku biyaha iyo daaqa ayaa ahaa waxyaabaha la isku dagaalayay 200 sano ugu dambeeyay taariikhda markii la fiiriyo midaas ay keentay marka maxaa la dhahaa dagaalada Soomaalida dhexdeeda ah haddii aad fiiriso dagaalo kale waxaa jiray haddana Soomaalida ay la gashay qowmiyadaha kale ee la degan ee geeska Afrika iyo dagaalo ay la gashay dadkii markaas cadaanka ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dhulka Soomaaliyeed sida qaladka ah ku yimid ayagoo waliba boob iyo dhac ka geysanayay marka labadaas dagaal markaad fiirisid waxaad arkaysaa marka Soomaalidu inaysan degin boqolaalkii sano ugu dambeeyay hadda waxaa sii xoogaystay marka labada dagaal sii xoogaysatay tobaneeyii sano ugu dambeeyay xorriyadda kadib labadii dagaal ayaa sii xoogaystay midka Soomaalida dhexdeeda ahaa meelo badan maxaa la dhahaa waxaana sii xoojiyay waxay tahay waxaa la helay hub ayaa la helay barigaas hub badan lama haysanin hadda hub ayaa la helay hubkii marka wuxuu keenay in dagaalkii macnaha Soomaalida dhexdeeda ahaana uu sii xoogaysto iyo dagaal kale oo ayaduna markay Soomaaliya dawladda noqotay ay macnaha ay la gashay wadamada dariska ah oo mataqaana ay dhul aan isku haysanay ayaduna nafta ahaanteeda waxaa sii xoogaystay dagaalkii dibaddaana waxaa la dhihi karaa uu sii xoogaystay kadibna markii dawladda Soomaaliya burburtayna dagaalkaas dibadda ah aad u sii xoogaystay haddana kii dhexdeenaana uu sii xoogaystay marka labada dagaal ee 200 sano ee la soo dhaafay ee marka hore tartiibta ahaa aad ay xawli ay ku socdaan hadda markaad fiiriso guud ahaan kor aad ka fiiriso mataqaana taariikhda Soomaalida Soomaalida waxyaabaha qabsada waxaa kamid ah hogaamin xun ayaa qabsatay hogaamintaas xunna waxay keentay in bulshadu ay mataqaana is aamini weyda ayay keentay hogaamintaasi xun waxaa dhaliyay hogaamiyaashii oo aanan daacad ahayn danta guudna aanan ka shaqaynaynin is-aamin la'aanta bulshada dhexdeedana waxaa dhaliyay cadaalad darrada ayaa dhalisay marka meelaha hadda aan taagannahay oo aan isleenahay hadda waad ka soo fiicnaanaysaan oo aan rajaynayno waa meelahaas waa xaqiiqda marka la dhaho sidaas daraaddeed haddii ay Soomaalidu hesho hogaamiyaal daacad u ah oo cadaaladna u sameeyo waxaa la gaari karaa in bulshada markaas is aaminto marka haddii marka sidaas aan macnaha dhinacaas ka fiirino waxaan arkaynaa xalka intuu ku jiraa waa marka ayaa macnaha ku muuqan kara meelaha qaar haddaba Soomaalida mataqaana maxaa la dhahaa si ay nabad u noqoto marka waxaa muuqato in cadaalad la helo cadaaladana waxaa keeni kara madaxda ayaa keeni karta maadaama khilaafku uu yahay khilaaf siyaasadeed uu yahay sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la helo hogaamiyayaal bulsho iyo kuwa dhaqameed iyo kuwa siyaasadeed oo dadku ay aamini karaan markii la fiiriyo mataqaana xaaladda aan maanta taagnaa laakiin haddii uusan jirin maxay ahayd arrintaas haddii aan la helin oo dad lagu tiirsado oo dunida meelaha khilaafyada ka dhaceen dad badan oo lagu tiirsadaa soo baxay marka waxaa loo baahan yahay in dadkaas in la helo waxaa kaloo haddana muuqato doorka ugu weyn ee dib u heshiisiinta inay gacanta ugu jirto markaas madaxda inay gacanta ugu jirto waayo waxa isdilay waa dad madaxnimo rabo beelihina u adeegsaday ula ay isku garaacaan u adeegsaday marka mataqaana maxaa sababtaas darteed dib u heshiisiintu waa inay ka bilaabataa hoggaanka macnaha la fiirinayo waa inuu ka bilowdaa markii ay dadku kala aamin baxeen waxay u kala safteen hogaamiyayaashii xukunka markaas isku qabanayay ay isku karfteen intii ka dambeysay xorriyadda hubna waxaa laga dhigtay dadkiina hubaa laga dhigtay waxaa muuqata in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed laga dhex abuuro is-aamin dhexdooda ah iyo is-cafin laga dhex abuuro cidda ka abuuraysa marka yaa waay shaqadaas ay u taala marka arrimo fara badan ayaa dib u heshiisiinta marka ayaa macnaha markii laga hadlaayo aad kor istaagaysaa su'aalo badan marka u baahan in laga jawaabo inta aanan loo gelin hawsha dib u heshiisiinta su'aalahaas waxaa ka mid ah yaa dib loo heshiisiinayaa yaa hawshaas dib u heshiisiinta qabanaya
wadadee ayaa loo marayaa waxa kaloo la isweydiin karaa oo su'aalahan hortaagan ah ma hoos ayaa laga soo bilaabayaa oo gunta hoose ayaa laga soo tolayaa mise kor ayaa macnaha laga soo bilaabayaa waa su'aal taagan su'aasha kaloo taagan waxay tahay dhaqaale intee la eg ayaa la rabaa in lagu bixiyo hanti intee la eg ayaa la rabaa in la geliyo ama waqti intee la eg ayaa la rabaa in la geliyo maxayse tahay ujeedada ugu dambaysa ee la rabo dib u heshiisiinta ee dalka Soomaaliya marka hadda waxaa muuqata su'aalaha qaar waxaad u maraysaa jawaabtooda in qaarkood si fudud hadda loo heli karo tusaale ahaan hay-ad xil saaran way jirtaa oo mataqaana dowladda Soomaaliya maadaama ay jirto dastuur sheegayo qodobkiisa 111 qaybta maxaa ay sheegayso 3 farqood oo ka hadlaysa dib u heshiisiinta in la sameeyo sheegaysa waan haynaa dhinaca kale dib u heshiisiinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed haddii aad fiiriso waxa isleedahay yaa la heshiisiinayaa su'aalihii aan isweydiinayna mid kamid ah waxa su'aalaha la soo qaadan karo waxa kamid ah waxa dib u heshiisiinta ma taqaanaa maxaa la dhahaa u baahan dadka Soomaaliyeed iyo dhulkooda dadka iyo dhulka in la heshiisiyo waayo waxa noo muuqato in dhulkan khayraadka badan leh aynaan isticmaalaynin marka dhulkii iyo dadkii isma ma taqaanaa waxaana yar wadaniyadii ayaa yar dhulkii iyo dadkii ayaa macnaha isa seegan waxa isdiidan oo dib u heshiisiin u baahan dabeecadda dhulka Soomaaliyeed iyo fikirka dadka Soomaaliyeed ayaa macnaha u baahan in la heshiisiyo waayo dabeecadda dhulkeenu waxay dalbanaysaa in si sax ah loo qorsheeyo abaaraha soo noqonaya iyo in laga faa'iideysto kheyraadka dabiiciga ah marka dhulka Soomaaliya dabeecaddiisa iyo fikirka qofka Soomaaliya in la heshiisiyo waxa isdiidan oo aan is-aaminsanayn xaqiiqda markaan u eegno madaxda iyo muwaadiniinta madaxdu waxay aaminsan yihiin dadku inaysan daacad u ahayn macnaha dalka dadkuna waxay aaminsan yihiin madaxdu inaysan cadaalad ahayn marka in madaxda iyo muwaadiniinta ayagana la heshiisiyo waa loo baahan yahay in dhaqanka Soomaaliyeed iyo nidaamka dawliga ah la heshiisiyo waa loo baahan yahay dhaqanka Soomaaliyeed iyo nidaamka dawliga ah ee naloo keenay in la heshiisiyo waa iyadoo loo baahan yahay waayo waxa la arkay inay isdiidan tahay dhaqanka Soomaaliyeed iyo fikirka iyo macnaha ku jiro waxa la yiraahdo hay'ad ama organization iyo dhaqankeena ayaa iska hor imaanayo marka nidaamyadii dawliga ah ee dalka Soomaaliya soo maray waxaan arkaynaa sida taariikhdu ay noo sheegayso inuu shaqayn waayay nidaamkii dimuqraasiyadda ee 9 sano waxa shaqayn waayay nidaamkii hanti wadaagga cilmiga ku dhisan ee shuuciyadda waa shaqayn waayay nidaamkii waxa shaqayn waayay siyaasadda la qabiileeyay waa shaqayn waysay nidaamkii dictatoriyadda waa shaqayn waayay waxaana muuqata in nidaamka federaalku uu shaqaynaynin marka waxa ma taqaana meesha kaaga soo baxaysa in dhaqanka Soomaaliyeed iyo fikirka la dhaho dawladnimada in dib loogu noqdo waxa si sax ah u wada kulmin oo aan is arkin oo is qaabilin xaqiiqda nolosha iyo qowmiyadda Soomaalida ayaan is arkin marka dib u heshiisiinta macnaha maxaa la dhahaa meelo fara badan ayaa ma taqaana kula galaysaa haddii aad isweydiisid waxa isdiidan ganacsatada iyo ganacsiguna wuxuu u baahan yahay nidaam ganacsataduna si kale ayay wax u wadaan marka arrintaasna way isdiidan tahay dhinaca kaleeto qabiilada waxaa ka jira is-aamin darro dhexdooda ah haddii xaqiiqda aan ka hadalno waa sababta ay dadka ka imaada gaalkacyo labada dhinac sida noo sheegay ay ugu jiraan wada hadal ah in ay is-aaminaan labada aragti ee marka hadda la rabo in ma taqaana hadayna aan soo sheegay ee dib u heshiisiinta la rabo ee la isleeyahay midkee la qaataa in hoos laga soo dhiso oo beeruhu ay heshiyaan dhaqan ahaan iyo in kor laga soo dhiso oo madaxda siyaasadda ay ayagu heshiyaan labada arrimood ayaa Soomaalida ayaa hortaala tii la qaadan lahaa ayaa ma taqaana wali waxa muuqata inaan go'aan laga gaarin dhinaca kale Soomaalida waxa kale oo ay kala haystaan hantiduna waa laba nooc hantida guud oo macnaha dalku dhan wada leeyahay dadka dhan wada leeyahay iyo hantida gaarka ah hantida qaran iyo hantida macnaha maxaa la dhahaa guud oo dadku kala wada dhaxaysa waxa kamid ah xukunku waa hanti guud oo public property ah iyo hanti gaar oo shakhsi leeyahay oo ayaduna ma taqaana maxaa la dhahaa meelaha qaar aan wali ma taqaana la isku celinin marka daraasado fara badan oo adduunyada lagu sameeyay
waxaa soo baxday qowmiyadaha ama bulshooyinka iyo dhaqankooda ayaa la isku fiiriyay waxaa la yidhi qowmiyad kastaa inta uu dhaqankeedu ka qodan yahay uu ka gundheer yahay waxaa lagu ogaadaa khilaafka haddii khilaafkaasi uu ku raago oo ay soo celin waayaan dhaqankaas dhaqan gundheer maaha haddii laakiin ay khilaafka soo celiyaan isla markii waqti gaaban ay ku qaadato waxaa la yidhahdaa dhaqankaasi waa dhaqan gundheer oo mataqaanaa baaxad weyn marka taasna waxaa kaaga soo baxayso maxaa la dhahaa inta loo baahan yahay in la fahmo dhaqankeena inta uu qodan yahay hadda waxaa muhiima inaan fahmno khilaafyada adduunyada ka dhacay sidee loo xaliyey oo su-aalaha la isweydiinayo marka aad fiiriso adduunyada meelo badan ayaa khilaafyo ka dhaceen waxaa ka mid ah dalalka dib u heshiisiintu ay ka dhacday oo mataqaanaa khilaafyada ay ka dhaceen wadamada Latin America Chile El Salvador Panama waxay ka mid ah wadamada Afrikaana Sierra Leone Congo Uganda South Africa wadamadaas marka waxaa la isweydiinayaa sidee qaarkood ay u xaliyeen khilaafka iyo tusaale ahaan khilaaf ka taagan bariga dhexe haddii aan ka soo qaadno laba ka mid aan soo qaadno fikraddii lagu xaliyey waxaan soo qaadanaa South Africa oo kaleeto South Africa waxaa lagu xaliyey in dadka madow si nabad loo helo xukunka la siiyo dadka caddaankaana awoodda ay bixiyaan barnaamijkaas waxaa loo yaqaana Power for Peace awoodda keena nabad ah heshaane wayna hirgashay bariga dhexe waxaa la keenay qorshe loo bixiyey Land for Peace Israa'iil ee dhulka ka kaca Falastiin mataqaana maxay ahaa laga nabad helo camal marka barnaamijkaasi waa la soo dhaweeyey 93 laakiin horumar wuu sameyn waayay laakiin fikirkaasi wali wuu jiraa marka waxaa isweydiinaynaa Soomaaliya maxaa nabadda lagu bedelanayaa waxa nabadda aan ku bedelanayno maxay tahay waayo waa inay jirtaa wax nabadda lagu bedelanayo ma waxaan leenahay waxaan u baahanahay cadaalad saa nabad u helno oo justice for peace miya ma waxay tahay inaan dhahno trust for peace aan is aamino aan nabad helnee ma waxay tahay development for peace dalka hal la hormariyo sidoo hadda Dr. Khaliif ka hadlayay caafimaadka waxbarashada arrimaha asaasiga ah adeega bulshada in la helo si nabadkaas loo helo maxay tahay waxaan nabadda aan ku bedelno waa inay noo caddahay aan mataqaana haddii kaleeto ma noqonayso wax aan markaas macnaha guul ka gaarno kumana filna oo kaliya hadal waxaa loo baahan yahay in nabadda lagu bedesho wax la taaban karo wax la taaban karo waa in nabadda lagu bedeshaa waxyaabaha la taaban karo oo mataqaana maxaa la dhahaa oo Soomaalidu ay iska dhaadhicisay inaan taaban karno si aan nabad u helno waxaa ka mid ah in aan xukunka wadaagno sababtaas waa sababta shirarkii loo qabtay oo idil ay u ahaayeen shirar dib u heshiisiin ma ahayn waxay ahayd shirar awood wadaagga ah power sharing ay ahaayeen waayo waxaa loo arkay arrintaasi arrin la taaban karo oo adigana jagadaas qaado anigana tanaan qaadanaya loo arkay laakiin kuma filna weli waa aragna soo ma marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa maxaa la dhahaa dib haddana aan ugu noqono nabadda aan rabno waa mid dhaqameed baa mase waa mid siyaasadeed haddii ay mid dhaqameed ay tahay way ku filan tahay markaan isleeyahay in mataqaanaa maxaa la dhahaa odayaasha dhaqanka iyo mataqaanaa bulshada macnaha qaybaheeda kala duwan loo daayo laakiin haddii ay tahay mid siyaasadeed waa in markaasi kor ay kasoo bilaabataa oo ay ka imaataa nabadda waa inay dhinaca kore ay ka imaataa haddii aan fiirino doorka ay tirayarida kheyraadka dabiiciga ah ee daaqa iyo biyuhu ay ku leeyihiin nabadgelyo la'aanta dalka Soomaaliya waxaan arkaynaa in dagaalada ugu badan ee dhex mara bulshada Soomaaliyeed beelaha hal meel wada degan ay tahay inay isku qabsadeen macnaha meelihii biyaha iyo daaqa ay yaaleen waana kuwa mar walba dhacaa oo haddaad u fiiriso bilihii ugu dambeeyay way dhaceen sanadihii ugu dambeeyay way dhaceen marka ma aha kuwa mataqaanaa dhamaanaya ma aha way noloshii la xiriirtaa sababtaas waxaan isleeyahay ama nabadeena lagu saleeyaa nolosha in horumar lagu sameeyo si nabad loo helo markaas sababtuna waxay tahay waa laba Soomaalidu waxay u badan tahay xoolo dhaqato iyo Soomaalida dhulkeeda waa dhul roob yar oo dhaqaalaheenu uu markiiba jabi og yahay haddii roobka la waayay sida Dr. Khaliif uu sheegay haddaba ayada oo laga fikirayo sidii wax looga qaban lahaa biyarida ee dhulka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya guud ahaan haysato gaar ahaan xilliyada ay abaaraha xunxun dhacaan waxaa muhiim ah in horumar baaxad leh lagu sameeyo waxyaabaha Soomaalida u baahan yihiin khilaafkoodana dhalin kara asal ahaan oo ay ka mid tahay mataqaanaa biyaha iyo dhul beereed ka mid yihiin horumarkaas waxa uu qayb muhiim ka qaadan karaa sida la aaminsan yahay xalinta khilaafaadka iyo kobcinta nabadda ama ka hortagidda khilaafaadka
barnaamijkaasi waxaan anigu aan u bixiyey water for peace in biyaha macnaa nabadda in biyo lagu bedesho dadka xoolo dhaqatada ah in la dhaho biyaa laydin keenayaa nabad ha laydinka helo waxaan u malaynayaa arrintaasi inay tahay maadaama aniga aan ahay aqoon-yahan dhinaca cilmiga horumarinta biyaha ah waxaan diyaariyey barnaamij ku saabsan aan u gudbiyo dowladda Soomaaliyeed arrintaas ku saabsan oo ah in la qodo dhowr kun oo ceel in la qodo dunida la weydiisto kaalmo si dadku ay wax u wadaagaan dhibaatooyinkaasi salka hoose yaalna looga hortago dadkana wax ay wadaagi karaan oo ay mataqaana wada hanan karaan loogu abuuro waayo waxaa ii soo baxday in dib u heshiisiintu aysan ku filnayn oo kaliya in la iscafiyo balse loo baahan yahay in wax la taaban karo oo dadkuna ay wadaagi karaan la helo sida tusaale ahaan biyaha iyo daaqa sidaas oo ay tahay oo intaasoo dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirto ayaa haddana 26 sano ee ugu dambeeyay markii aan fiirino dhibaatooyinka aan soo marnay waxaan arkaynaa in Soomaaliya waxyaabo badan laga gudbay waxaana arrintaasi loo arkaa in horumar dhinaca qalbiga dadku inuu ka dhaqmay waxyaabo fara badan oo ay muujinaysa hadda dadka halkan isla fadhiyo inaysan isla fariisan karaynin 25 sano ka hor marka waxay ka mid tahay waxyaabaha laga gudbay oo aan rajaynayno in Soomaaliya ay mataqaanaa ku neecawsato horumarna lagu sii sameeyo barnaamijyada noocan oo kala ahna hore loogu wado haddaba waxaan haddii aan nahay qurba joogta Soomaaliyeed nalaga baahan yahay inaan door muhiim ah oo taageero ah aan ka ciyaarno nabadda Soomaaliya waayo annaga meeshii ma joogno doorkeena waa door taageero wixii la sameeyo wanaaga inaan taageerno laakiin waxaan kaloon leenahay door kale oo ah inaan wixii fikir iyo caqli iyo mataqaana maskax ah aan ku kordhino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay Soomaalida nabad darrada raaliga hadaya say ku ukuntay sheegeen nabaddu meesha dhaqankeenna nabaddu way ku yareed wiligeed wixii kanihe waxaan noo sheegay muxuu ahay aqoon-yahanada noo sheegay nabaddu aniga dhaqankeenna waa ku yareed ilaa 200 sano la sheegay ka sii horba waxa ku yareed nabaddu waxa lagu dagaalamayana waxay ahaayeen sidii hadda muxuu ahay asad noo sheegay daaq iyo bay ahayd muxuu ahay ceel iyo biyay ahaayeen qaranka markii la helayna waxay siyaasad bay isu bedeshay iswaayasha markii aan dawladnimo doonaynay waxaana la ku abaabulay haddaynu dawladnimo gaarno waxaanu gaarayno barwaaqada iyo nimcada iyo wanaaga iyo ladnaanta iyo inaan gaarayno aan la ku abaabulay markii calanku dhashay ee meeshii dig la yidhi tooy nalooma sheegin waxaan idiin sheegayna beenay ahaayeen markaas saas yeeshaan oo saas yeelno sidaas yeelno saas yeelnaan sidaan idiin sheegayna gaaraynaa nalama oran raggii ugu horreeyey markii muxuu ahay xildhibaanada la dooranayay rag baa lagu bariyay kaale tagoo diido hebelaan shaqahayna anigu shaqaan hayaaye muxuu ahay isagoo shaqada baarlamaanka sheega ha tago taas baa lagu bariyay laisku bariyay markii kuwii guryo dhisteen ay ladnaadeen markii sanadkii dambe waa lagu dagaalamay ka soo bilow maalintaa ilaa maanta nin laga aaminsan yahay nin wasiiraha waxa uu imaanayo odayaashiisa waxay leeyihiin meesha waad ka tegaysaa wax ka qabso waxay dhacal leeyihiin inay wax ku leeyihiin ma aaminsana saas darteed mashkiladda Soomaaliya waa hoggaanka ayay ka timid waxa saldhigga qabyaaladda waxa xoojinaya oo daaqiyo wixii laga yimid waxa gundhigu ah siyaasadda nin darajo doonaya Soomaalidu waad ogtihiin marka la eego muxuu ahay ganacsiga qabyaalad shaqo kuma laha marka la eego caafimaadka qabyaalad shaqo kuma laha waxbarashada loo baahan maayo qabyaalad wax guurku looba baahda qabyaalad war qabyaalada olaada Soomaaliyana ama hal magaareeyo ama hal siyaasadeeyo ninka siyaasiga ah meeshu selfka ku rogaa waa qabyaalada barkii wax uu doonayaa asigu meeshu qoys ka dhashay inuu afduubo oo muxuu ahay Soomaalidu doonayaa markii ya qabyaaladu u baahan siyaasi kaliya u baahan kaliya dadka ilbaxnimo waxa ka maqan dadka ilbaxnimo ka maqan sida hadda aqoon-yahanadu noo sheegeen nin wasiira ama madaxweyne ama wuxuu ahaa isageen oo dacado yahay laga aaminsan yahay ma jiro wax asoon xatmida waxba cadin xataa waxa la leeyahay guriyo ka dhisay muxuu ahaa Reblaayo inta tabaqo u dhistay waxa soo ma bal aaminsan heesan tiriya waxay ahayd
waxaan muxuu ahay markii ambagaasi la sugu tagaan wixii jawiga socday baan eegay markaas waxa yeeriyaan aan la yaabay wax marka barnaamijkan sameeyay idaacada ekran ka sii daayay mar waxaan ri wariya guuleedu shirku soo u socdaa anigu hay Soomaaliyan jirin muxuu ahaa isageen muxuu ahay haddaan weeyde markaas uu si fiican buu u socdaa ninkii warsamo ka waran waa wanaagsan yahayo muxuu Mareykanka wata Cabdiraxmaan ka waran Cabdiraxmaan yasana Carabta wata ninkii Xasan Dheere ka waran Xasan Dheere waxa wata Talyaaniga wata muxuu ahay ninkii waxa ahay Ali Gaab ka waran Ali Gaab faadan xaga galay waxa ta Itoobiya wadata ninkii jaamac ka waran jaamaciya muxuu ahay xalil masaxata wax wata Kenya wadata balaaya badana warheede waxaan wadanaa ma jiraan xayawaan baa tahay maxaa jira waxaan wadanaa hadii jiraan laba sano bari halka fadhin lahaayeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warheede waxaan ku hadda gorma dawladda dhisayay yiraahdeen waa loo og yahay ma oga oo gorma meeshan laga tagay yiraahdeen waa loo og yahay ma oga oo gorma muxuu ah dalka noqono yahay yiraahdeen waa loo og yahay ma oga oo maxay og yihiin wixii la ogeysiiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan hadda yaa la sugayaa karoos ma soo kay kibrigaad musafiini qof Soomaali ma sugayo qof Soomaali ma sugayo subhanallahi wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun raadiga hada warka igu jira إلى بريها دا وديك بحماية واد ما سنتين